radiyowga risaala masaakiinta rafaadsan radiyowga risaala masaakiinta rafaadsan abartu ay kala reebtay coladuna ku ragaaday ruqatay oo raaskoodii ka tageen wuxuu raadinayaa marka hore waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Kaxda kaasoo sida Faysal uu sheegay aad noogu fududeeyay noogala qayb qaatay dadaal badan ku bixiyay in barnaamijka aan sameeyno sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa isbitaalka Soomaali Syrian ee jaamacadda Joobka maamulkooda ayagana dhaqaatiirtan noogu deeqay iyo daawada maanta dadkan loo qayb doono hadii la baaro kadib marka hadii aan nahay shaqaalaha idaacadda Risaala waxaan go'aansanay inaan sanad guurada lixaad idaacadda Risaala aan la qaadano dadka Soomaaliya goboladooda dhan inta badan ka soo barakacay oo abaarihii ay saameeyeen kuna sugan degmada Kaxda intooda badan degmada Kaxda ku sugan kadib markii aan gudoomiyaha la kulanay oo aan indha ku sameeynay kaamamka ku yaala degmada Kaxda waxaa noo soo baxay kaamkan kaamil center inuu yahay mid ka hadda caafimaad ahaan ay suurtagal tahay inay aan ka fulino barnaamijkan marka aan fiirino isbiis ahaan iyo sida uu yahay marka waxaan aad ugu rajaynayaa inaan maanta dad badan oo aan ku aragna markaan maalintii Sabtiga indhaynta aan sameeynay kaamkan iyo kaamam kale oo aad caafimaadkooda u liitaba in maanta ay caafimaad helaan ololaha dadka barakacayaasha loogu gurmanayo way farabadan yihiin laakiin anaka waxaan garawsanay maadaama caafimaadku uu yahay wax muhiim ah mararka qaarna oo ka muhiimsan yahay raashinka maxaa yeelay caafimaadka xilliga lagu jiro kulayl ay jiraan shuban biyood iyo daacuun iyo wax badan la sheegay cudurro badan dalka laga sheegay iyo cudurro kale oo farabadan marka inaan focuska aan saarno ama xooga saarno dhankaas caafimaadkan go'aansanay markii aan maamulka jaamacadda Joobka iyo Soomaali Syrian aan kulanay kadibna gudoomiyaha aad u soo dhaweeyay in aad loogu baahnay marka waxaan rajaynaynaa maanta inaan halkaas aan ku qaadano arintaas oo dad ku dhow 100 aan u sameeyno fiisitadaas iyo daawadaas anakoo iskaashanayna Soomaali Syrian iyo jaamacadda Joobka iyo degmada Kaxda maamulkeeda oo guud ahaan waaxda iyo maamulka guudba marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin kuna soo dhawaada waxaan rajaynaynaa in maanta aan hawshan ku guuleysano waxaan mar saddexaad mar labaad iyo mar afraad aan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada oo aad uga qayb qaatay barnaamijkan marka laga reebo Soomaali Syrian ee jaamacadda iyo idaacadda Risaala kaalinta ugu weyn gudoomiyaha waa ilaan meeshii ammaankeedii qabashadeedii nidaaminteedii hawsheedii waa dadka isku howlo waa maamulka degmada guud ahaan gaar ahaan gudoomiyaha marka sidaas oo barnaamijku noogu furan yahay waana ku soo dhawaaneynaa waxaan rajaynaynaa maanta inay hawsheena si wanaagsan oo qurux badan inoogu dhamaato hadii Ilaahay yiraahdo waaya bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aad aan ku faraxsanahay maanta in barnaamijkan quruxda badan uu ku qabsoomo gudaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir barnaamijkan sida hordhaca teamka ay u sheegeen waa barnaamij runtii ay iska kaashanayaan idaacadda Risaala jaamacadda Joobka iyo isbitaalka Soomaali Syrian Specialist Hospital barnaamijka la ku dhigiisuna waxa uu yahay waa gargaar loogu sameeyo dadka barakacayaasha maadaama aan ognahay in dad fara badan oo barakacayaal ah abaartu ay saameysay ay isaga soo hayaameen deegaanada ay deganayeen haddana ay ku sugan yihiin dowladka Muqdisho gaar ahaan deegaano fara badan deegaanadan runtii waxaan dooranay saddexda maanta barnaamijka qabanayso idaacadda Risaala jaamacadda Joobka iyo isbitaalka Soomaali Syrian indhayn sida agaasimuhu uu sheegay raadiyaha waxaan garwaaqsanay inaan ka dhigano halkan centerkan kaamil center oo ku yaala degmada Kaxda barnaamijkan waxaa ka faa'iideysan doona insha Allah dad aad u fara badan oo halkan loogu sameyn doono insha Allah gargaar caafimaad oo lacag la'aan ah xagga daawada xataa jaamacadda Joobka waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho maalmahana jaamacaddu waxay aad ugu nugleed u gargaarista dadka dhibaataysan ee ka soo hayaamay deegaanada ay ku suganayeen oo abaartu ay saameysay barnaamijyadan oo kale jaamacaddu way dardar gelisay way si wada iyadoo kaashanayso qalabka warbaahinta sida idaacadaha maxalliga ah telefishinada iyo baraha bulshada idaacadda Risaalana waxay ka mid tahay idaacadaha runtii aan aadka xiriirka dhow la leenahay barnaamijkana waa sanad guuradii saddexaad oo waa sanad guuradii lixaad idaacadda Risaalo oo loogu dabaaldegayo waxayna nala garwaaqsadeen inay nala qaataan barnaamijkana u jeedaan oo ah gurmadka dadka dhibaataysan oo loogu gurmanayo
gargaar caafimaad maadaama waxyaabaha ugu muhiimsan ee bini'aadamku u baahan yahay kow ay ka tahay caafimaadka waxa labaadna ay noqon doonto insha Allah waxyaabihii dadkaas ay cuni lahaayeen waxa ka muhiimsan caafimaadka bulshada hadii caafimaadka laga dhiso waxyaabaha kale waxaad moodaa in la heli karo sida awgeed marka isbitaalka Somali Syrian Specialist Hospital oo bahwadaag la ah ama olog la ah jaamacadda Joobkey ayaa isna naga aqbalay in barnaamijkaas uu nala qaato dhaqaatiir iyo howlwadana ka tirsan isbitaalka hadda ay meesha ku sugan yihiin waxaana diyaar u yihiin in ay barnaamijkan si habsami leh uga qabtaan centerkan oo dadka loogu talagalay barnaamijkan caafimaadka ay ka faa'iideystaan marka barnaamijka ayaa goor noo bilaaban doona insha Allah shaqadeena maanta halkan ka socoto xaruntan Kamil Center ee kamid ah degmada Kaxda runtii waa gargaar aan u sameynayno dadka Soomaaliyeed ee barakacayaasha ee halkan ku sugan oo doonayna inaan siino wixii daawooyin ah oo treatment ah sidoo kale kaliya ma noqon doonto barnaamijkeena daaweyn kaliya ma noqon doonto waxaana la socdo public health professionals ka kuwaliiraan la socda ayagana wacyigelin guud ka dhaxwado dadka oo doonayna inaan u sheegno waxyaalaha muhiimka ah sida ay biyaha oo kale iska nadiifin lahaayeen sidoo kale cuntada si iska waxay helaan ay u nadiifin lahaayeen waxyaalo badan ayaan ka dhaxwadnaa dhaqaatiir kale oo isbitaal ka socdo oo ayagana daawooyinka bixin doonaan insha Allah sidoo kale waxa nala shaqeynayo idaacadda Risaala iyo jaamacadda Joobkey oo arintan iska wada kaashanay iyo maamulka Kaxda runtii dadka meeshan ku daaweynayno wixii kale aan aragno oo culus waxaan doonaynaa inaan u qaadano isbitaalka si aan u sameeyno gargaar intaan ka sii faahfaahsan waxyaalaha badan ee dadka aan u sheegayno waxa ka mid ah in ay sidoo kale ay xooga saaran xagga ka hortaga daaweyn kaliya wax ma tarayso prevention is better than cure ka hortaga ka muhiimsan daaweynta marka intaas ayaan ku soo gabanaya insha Allah horta meeshan aad u jeedaan dhaxad ku nool barakacyaal cadadiisa gaarayaan ilaa 12,000 saacad walba iska soo daba dhacaan xanuuno aan la soo koobi karin ayaa hayso maanta meeshan waxaan mar labaad uga mahad celinaa idaacadda Risaala oo intii lacagtii hotel la geyn lahaay ama meel xarun weyn xaflad ay ku dhigan lahaayeen ku dhex qabanayo kaamamkii ku yaalay degmada Kaxda khaasatan waaxda saddexaad ay ku dhex qabteen maantay barakacyaal cadadooda aan la soo koobi karin dhexdooda ay kula qaybsanayaan sanad guuradii idaacadda meeshan maxaanta waxa fadhiyo aniga wardheer igama furno gudoomiyihii degmada Kaxda mudane maxamed Ismaaciil Cabdullaahi asagoo kaalin lixaad la ka qaatay kuna dhiirigeliyay in idaacadda Risaalo maantay meeshan ay ku qabsato sanad guurada maanta taariikh aan qorayno waxay tahay annagoo ee maamulka degmada Kaxda waa idaacad ama iskuul ama qolo oday rabtaan noqoto waa kaalinta koowaad waxaad gashay idaacadda Risaala qolo ka horeysana kuma qabsan qolo ka dambeysana kuma qabsan qaxootiga dhexdiisa maanta barnaamijka ay ku qabanayso idaacadda Risaala dhaqaatiirta jaamacadda Joobkey Somali Syrian Hospital dhammaantiin meesha waxaan idinka leenahay jasaakumullahu khayr ku soo dhawaada degmada Kaxda ku soo dhawaada dadkiina masaakiinta ee barakacyaasha ee ka soo barakacay abaaraha ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu roob khayr qaba keeno abaarahaana ummadda muslimiinta ka dhex saaro idaacadda Risaalna kun iyo kow jeer waxaan leenahay magaciina ha jiro oo ha joogo insha Allah sanad guurada lixaad tan toddobaadna ilaahay naf in Allah noo gaarsiiyay ninkii noolaana gaari doono wajazaakumullahu khayr meesha waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyihii degmada Kaxda mudane Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi oo dhinacayga fadhiyo mudane gudoomiye ku soo dhawow alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasuulillah gudoomiyaha waaxda Umar Fiyaasko agaasimaha idaacadda Risaala diktoorka maaragtay jaamacadda Joobkey diktoorka isbitaalka Somali Syrian dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha la socota bahda saxaafadda idaacadda Risaala dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bacdu taxiya marka koobaad waxaan leeyahay Risaala hambaliyo aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sanad guuradii lixaad ee aad garateen inaad idinka oo bahweyn soo hogaamiyey dhammaan isbitaal Syrian iyo jaamacadda Joobkey oo wada socda inaad garataan maanta inaad nala qaybsataan
dareenka xanuunka badan ee ay ku sugan yihiin shacabka walaalihiina ee Soomaaliyeed ee ka soo barakacay gobolladeenna kala duwan ee abaaraha iyo masiibooyinka dabiiciga ay aafeeyeen aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba hambaliyo jiro jooga jazaakum allahu khayr baan leeyahay waa idaacadda risaala hambalyadaasi isbitaalka Soomaali Siriyaan waxaan rajaynayaa dhakhaatiirta isbitaalka nagala joogta inay maanta ku arki doonaan xanuunadii ay u tababarteen noocyadiisa kala duwan ee cilmiga aqoonta u yeesheen inay halkan ku arki doonaan nagana gaarsiin doonaan fariin dheeraada inay gaarsiiyaan dhakhaatiirta ay ka yimideen isbitaalkii ku dambaysa si ay oola wadaagaan dhakhaatiirtooda dambe iyo maaragtay waxa ay arki doonaan meeshan waxaa ka jira xanuuno badan sida jadeecada shubanka TB-da xanuunada faafa oo dhan baa ku badan maxaa yeelay mujtamac ilaa dhowr iyo 10,000 oo maaragtay qoysa ayaa ku nool degmada Kaxda maaragtay eriyada ay barakacyaalku ka degan yihiin oo shalay ku soo wareegteen inta aanu idin geynay aad indhihiina ku aragteen oo idinka laftiinu marxaati ka tihiin xanuunyada kala guduwan ee idin tusnay inay xanuuno aad u tiro badan ay yihiin intaana waxaan leeyahay isbitaalka Soomaali Siriyaan ayaan iyadana u rajaynayaa inay qayb ka baaxad badan aan ka rajayn doonaa iyo dhakhaatiir inta ka badan oo ka xoog badan iyo daaweynta ka xoog badan inay soo diri doonaan insha Allah maantana ballanqaadka ay halkan ka fidiyeen inay wixii ay arkaan ay geyn doonaan maanta kaliya inaysan noqonin ay ballanqaad xoog badan u muujiyaan wax allaale wixii cudura ee xanuunsan ee aan naga xoog bata inaanu keeni doono iyadana ballanqaadkaas oo buuxa inay nasiyaanna waa ka rajaynaynaa jaamacadda Jobkey waa iftiinkii ummadda Soomaaliyeed ayay ka mid tahay runtii iftiinna markuu soo baxo ay aqooni soo baxdo aqooni inay adeegto ayaa la rabaa waana ficlan waa aragnay dhakhaatiir baan isleeyahay way leedahay jaamacaddu barofesoray leedahay aqoon-yahano badan bay leedahay shacabkii Soomaaliyeed mustaqbalka aad maaragtay aad wax u baranayseen ee aad maaragtay aad shacabka idin ahaana waa kuwaas idinkuna inaad aqoontiina wixii aad kari kartaan uga faa'iideysaan oo haday noqoto arday aan waxba iska bixin karin oo u baahan kuwaas barakacyaalka waa dadka in wax la baro xaq u leh waa dadka in wax la baro wax loo tar xaquuq u leh iskuulaad baa jira barakacyaalku ay leeyihiin hadaad macallimiin mutadawiciin u soo diri kartaan iyo hadaad wax barashada qayb kale ka saacidi kartaan idinkana waxaan leeyahay Allah idin cizeeyo ku soo dhawaada barakacyaalka iyo walaadadkan walaalihiina oo dhibaataysan garabkaad ku leedihiin xagga aqoonta iyo idinkuna inaad ka garab qaban doontaan baan ayaan idinka rajaynayaa haddaan u soo laabto warbixin yar oo kooban oo ku saabsan dhibaatada jirta iyo xaaladeeda dadka degan degmada Kaxda ee barakacyaalka annagu sitimaankii hore 9,550 ayaa tira koobka rasmiga ayuu noo marayay laakiin inta ka dambeysay ayaa barakacyaal badan oo kala nagu soo biireen waqtigan xaadirka waxaan isleeyahay 10,000 ilaa 11,000 inta u dhaxaysa ayay barakacyaalku sii cagacageynayaan meelahay degan yihiinna meelo yar ma aha waa dad aad iyo aad u baaxad badan markay noocaa tahay marka ruux walba waxba u daran aniga ka mas'uul ahaan waxa ii daran maanta ruuxan afka markuu wax geliyo ficlan wuxuu rabaa dhawaan meel uu ku nafiso ama uu ku saxaroodo ama uu maaragtay hadii wasakhi korkiisa gaadho oo iskaga dhaqo waxa ugu darani waa masquul la'aan waa hoy la'aan waa caafimaad la'aan waxa inta ka dambeeyay waa cuntadii iyadu mar walba iyadu laga maarmaana ruuxu inuu cunto helo waa shardi oo haduusan cunto helin ma noolaan kara laakiin meeshii uu ku saxarooday haduu ruux hadana seexdo waxa weeye caafimaadkii waxaad moodaa inaysan wax badan ayna ka qabsoomaynin waxaan codsanaynaa oo aan cod dheer idaacadda risaala iyo warbaahinta maanta nala joogta hambalyada kadib aanu u fariin oo dheer aanu ku gaarsiinayna anigoo ka faa'iideysanaya idaacadda tooska maanta u shaqeynaysa santarka kaamil annagoo maanta ayanu ku bixinayno daawo iyo maartay fiisito ay ku sameynayaan Soomaali Siriyaan dhakhaatiirta iyo idaacadda oo ugu dabaaldegaysa maantana qabanaysa dabaaldegeedii lixaad waxaanu ka faa'iideysanaynaa oo aanu nasiib u helay inaanu maanta codkanaga si dheer u gudbino inay dadkaasi u baahan yihiin wax allaale wuxuu bini aadam u baahanaa xanuun bini aadam ku dhaca oo aan ummadan haynin ma jirto kii noolaha baa jira kii curyaanka baa jira
kii waayeelka ahaa baa jira kii agoonka ahaa baa jira islaantii xaamilada ahayd baa jirta wax walba oo bini'aadmigu u baahan yahay ayaanu baahannahay haddii dadka Soomaaliyeed ee maanta qaarkood guryo ku jiraan ha ogaadeen dad walaalahooda oo baahan oo bannaanka jiifay inay jiraan hadduu ay jiraan maanta ruux caawa xabad canjeeraha dubtay inay jiraan dad aan xabadda canjeeradaas saaka dubanin ama aan heli karin inay jiraan hadday maanta uu jiro mid qabaystay oo wasakhdii korkiisa saareed iska saaray ku walaalkiisa oo wasakhdii iska saaray inuu jiro ha ogaadaan baaqa dheeran joodinayno ee aan dawladda Soomaaliyeed ee ugu horeeya mudane madaxweynaheena sharafta leh ugu horeeya waxaan u jeedinaynaa mudane madaxweyne ummadda Soomaaliyeed oo geed gaaban iyo dheerba aan huba inaad fuuli doonto sida aad dhibaatada iyo baahida iyo rafaadka iyo mashaakilaadka haysta aad uga saari lahayd inaad u diyaar garowday aan u filayo arrintaasi waxay u baahan tahay in dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo kala harin si dhab ay u wajahan ra'iisul wasaarahana waxaan ugu hambalyeeynaa dadaalka dheeraadka ee hadda uu wado oo meel walba oo goobaha barakacayaalka iyo sidii u tagay iyo sidii uu mar walba goob walba u taagan yahay dadaalka in la sii laba jibaaro duqa magaalada gudoomiyaha gobolka ana duqa magaalada runtii waxaan ka codsanayaa dhibaato badan baa jirta oo dadkii ku soo barakacay degmooyinka koonfurta xiga sida degmada Kaxda iyo Garas Baaley iyo Daynil oo kale waxay u baahan yihiin ogaansho degdega iyo soo gaaritaan in la soo gaaro oo la soo arko oo xeriyihii oo gobolku furay iyo goobihii kale dadku ay barakacayaalkii ay ku signaayeenba aragti buuxda loo soo yeesho oo la daraaseeyo baahidooda dhabta bulshada Soomaaliyeed ee sharafta lehna waxaan ka codsanayaa ha joojinina dhiig joojintii aad wadeen iyo sidii aad uga wareyseen dadka walaaladiina aad iyo aad waxaan in badan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koobaadba idaacadda risaalo oo maanta u dabaaldegeedii lixaad oo hambal yaleeyay kuna soo celinayo iyo isbitaalka Soomaali Siiriyaan oo soo booqday maanta oo dadkan dhibanayaalka ay xanuunsanaya daaweynaya iyo jaamacadda Jobkey oo maanta si wada jira noola harsanaya oo aan maanta ku daaweynayno santarka la yiraahdo Kaamil oo dad ilaa hadda ay fadhiyaan ilaa dad dhowr boqol oo wax xanuunsan iyo wax in la daaweeyaba u baahan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa wa shukran wa jazaakumullahu khayr jira oo joogan leh risaala maantana waxaan idinku mahadcelinayaa inaad maanta ku dabaaldegaysaan degmada Kaxda khaas ahaan waaxda saddexaad ee Cumar Fiyaasko qaybta barakacayaalku ka degan yihiin aad iyo aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh راديوغا رسالة مساكين ترفاتسن راديوغا رسالة مساكين ترفاتسن أبرتو أي كلا ريبتي عولدنا كرقاتي رقطي أو راسكودي كتاقمبي أو أرادي ليا راديوغا رسالة مساكين ترفاتسن أبرتو أي كلا ريبتي عولدنا كرقاتي رقطيو راسكودي كتاقمبي وأرادي ليان راديوغا رسالة حاوى عبدو عمر أنا كسو بركة عدافات وحا إسو قابة أبار وحا إسو قابة قاج وحا إسو قابة أون هدان حمران إمات ونكوا حنونسو أي ولا لها يندابن السيان وهدان إن شاء الله يلنكم وكم هتعلنين أنت إلهي خير سي خضر يا كل شهر أنا هوي ديوا عندك كسو بركة عدين قريولي أيه ما خسني جراتا توني أفرسن هل كان قرمات مادين إلا إيو هل بيوت ها قريولي قبل كشبيلاه وسك سو بركة عدين ها أي هل كاس ما حد كل خنجرتين ما حول دقتي هذين مس بيرلي هذين حول دقتي بيرلي وحياة بس كسميجين حوليها أود حوليه ويدا مادين أي حق لقاها يا السنتا كخلنا سنتا كخلنتا ما كقدع سنتا جيدا كسودا كسودا قرما غلين كسلقو سمي هذه لو مرة اللي وسمي هذا مركز الدحات واه أنا وسمي أي محل وسيمانتا داو أي خلجيه وكنين فيتامين إيو وما تضع نور كالوضع خا هروسي سيدا ورقتا والله واكو فرح سنة مادام وداو لي سيه
oo meesha iskaga nadaafi liile hay-adahan barnaamijkan kuu fuliyey maxaa leedahay oo ugu mahad celinaysaa waa u mahadcelinaa magacayga xamdi cabdullaahi faarax xagee ka soo barkacday shirey xagee laga hayaa wadnaha iyo dhowr xanuun iyo nafaqo la'aan dhiig la'aan way haysaa ilaa goorma ilaa iyo maanta 28 beri maxaa lagu sii maanta kaniinooyin iyo nafaqo fiican hay-adahan barnaamijkan kuu fuliyey maxaa leedahay waa u mahad celinaa waa mahadsan tabaalaysan oo haddana jiran oo xanuun la yimi baa jooga dadkaas xanuunada la yimaadeen waa shuban biyood jadeeco tiifo iyo malaariya way qabaan gundalaariya dad ay u dheer tahay dad wallaahi aad iyo aad u tabcaanaha ku jiro kolley dee intii ilaahay subxaana watacaala waa arkaa intii dhibaato oo bilaadan sheegan karana way qabaan dadkaasi ma helaan qutal daruuriga maanta ay cunaan xeryaha kariska helay oo maanta yacni wax loo karinaya kama mid aha santarkan kaamila la yidhaahdaa santarada xataa wax laga karshay kama mid aha dadka ku xeraysan subaxii waxaan siinaa digsi shaaha wixii subaxii ka dambeeya waxay karsadaan waxay aadaan meelaha wax laga karinaya weelo qaataan ama way soo helaan ama way soo waayaan ilmo yarna waxaad arkaysaa duhurkii aan wax cunin maqribkii wax cunin subaxdii wax cunin saakoo dhan islaanta ay la wareegayso ku wareejinayso biyo yar dabka saartay inta meelaha jaabo ka rubsato oo biyaha kulul ay tusinayso marka kale way dhibaataysan yihiin hooyigii ay geli lahaayeen ma haystaan daraad waxaan isugu dardarnay wax yar oo adigu qoryo iyo wax ay ku gataan calalaan u soo aroorinay inta wax ka badan oo kale awoodeena noqotayna ma aysan jirin oo waxba calooma helin marka xilli roobna hadda waa la galay waxaan odhan lahayn walaalaha islaamka oo dee adduunka ku noolanay bal kulley bacdana ha noqotay ee wuxuun ku kaalmeeyaan quduldaruurgooduna aad iyo aad buu u daran yahay ka waran nolosha caafimaadkooduna wax daawo ammaantayba u tahay dhowrkan beri may arag wax daawo may arag maalin dhexdaas qole daawo u keentay laakiin hadda intii daawadaas ka dambeysay jadeeca saa'idku ilmaha indhaha ka saabaysay oo indhad la'aan ku riday xataa way jiraan jadeecadaas daran haysa shuban biyoodka siiba ilmihii iskoolaadka dhiganaya aad u saamaysay oo iskoolaad barakac weeyaan iskoolada martasaa loo dhisay ilmahaas xataa dhowr iskool ilma dhimashaa u yimid oo dhowr ilmood oo ka dhimatay xeryaha dhexdoodii dhowr ilmood baa ku dhimatay shuban biyoodkaas aad ugu daran santarkan ka waran marka dadka ku nool tir ahaan santarka kaamil dadka ka tirsan ilaa wuxuu dhan yahay 1800 waa xeryo dhowra dalado badan baa ka tirsan sida dalada xaqdho miisaan macquul dheeman carmaale sagal dalada la yiraahdo gurmad iftiin dhiblaawe nadiif xerada la yiraahdo hibo ceebdiid way badan yihiin waa galta ka waran maxaa leedahay deeqdan Soomaali Siiriyaan idaacadda Risaale ee jaamacadda joogka ee maanta idin keenay waxaan leenahay walaalayaal kulli maanta waa aragtaan kulli dib daawana intii ay qabaan iyo dhibaato daawana waad u keenteen alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay khayr idinka siiyo idinka abaal mariyo meel fiican oo kulli wanaagsan Allah idin geeyo inta wixii aad tari kartaan walaalihiin bal bacda iyo raashinka qutal daruuriga ah hadii loogu dari karo walaalihiin ha eegan magacayga Maxamuud Xasan Cabdullaahi ali yiraahdaa shabeellaha hoose baan ka soo barkacay alxamdulillah biilaan baad la'aan xoolay waa inaga dhamaadeen wallaahi saxariir suxun baa isaga noolnahay rafaad haddana dikasta haddaaba ooga sii daram labadii bir hore baa ka soo daray wixii xoogaa biyaa keenay baadina waa naqday cidii baraka hadda zaa'id ku tahay dhibkaas xoolo ma haysano baad ma haysano nolol ma haysano bac la'aan guryaalku waa iska deynoo rafaad dhib ilaahay alxamdulillah khayr ilaahay keeno waa isaga jirnaa khayrka kulli ilaahay naga qaado kara bini aadan naga qaado karo kaas baa jirta adeerkiis ka waran marka dadka noloshooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin wax kasta waxa ay u baahan yihiin nolol ay u baahan yihiin wax kasta waa isaga baahan yihiin wax loo qabto hay'adaha dawladda sharafta leh inay wax noo qabato gargaar weyn anaga dib u qabno inay na siiso waa isaga baahanahay hawshan maanta la idin qabanayo ka waran hawshan maanta waa idinku mahadinaynaa khayran idin rajeynaa idinkana ilaahay idin soo dhiibo waa ka hortiina nuura idin ka dhignay ay odayaasha xaafadana ka mid dadka ku soo barka sablaale ku soo barka barka ibanaan ay xagee ka soo barka sablaale ay ka waran noloshiina hadda daawba ilaahay maanta noo siiyay intii kalena muddo aanta joognaa bacla'aanna waana haysaa gaajana waana haysaa rafaad waana waa idinka mahadcelinaynaa maanta daawiya noo siiseen alxamdulillah hadda saasaa jirto ilaahay mahad leh
ba'la'aan gaajo rafaad baan ku jirnaa idankana waa idin mahadcelinaynaa maanta daawada noo siiseen gargaar baan ka rabnaa ilaah baa gargaar bixinaa runtii riboodka aan gudbinay iyo waxyaabaha aan helnay samaa waxay ahayd konton oo ay dhikaare ah balse xanuuno la daris ee barakacayaasha waxaa ku sii darsoomay 40 in ku dhawaad oo gaaraya soo marka most caseska aan aragnay iyo waxyaabaha aragnay waxaa ugu badnaay haddii ahaan leed shubanka ama pneumoniada ama bronchitiska burukintada oo ilmaha yar badana ahay iyo maamooyinka iyo badanaa ku arkayna wax loo yaqaan vaginal discharge inuu vagina socdo dhicaan most daawooyinka aan siinayna waxay ahaayeen antibioticada waxa u kala baxa groupyo laakiin most daawooyinka aan siinayna waxay ahaayeen group amoxicillin iyo penicillin iyo waxyaabahaas aan siinayna iyo erythromycin iyo kaniiniyaal xasaasiyin waa ugu dareenay oo ahaay chlorpheniramine soo marka ferrofol maamooyinka oo tabardarida iyo waxyaabahaas la tacaalayna waxaa siinayna ferrofol most daawooyinka intaas ayaa ku miisaameena marka waa noo soo gabagabooday howsha falilaahi alxamdu marka Soomaali Syrian iyo Risaale iyo jaamacad joobka guul insha Allah waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fududeeyay in aan barnaamijkan maanta qabanno waxaa iska kaashaday barnaamijkan caafimaadka gargaarka aan ku sameeynay oo ku beegnay sanad guuradeeda Cabdi Risaale lixaad isbitaalka Soomaali Syrian iyo jaamacadda joogka iyo Cabdi Risaale iyo degmada Kaxda maamulkeeda oo naga gacan siiyay inaan kaamka kaamil oo barakacayaasha ay ku sugan yihiin aan nimaado kana sameeyno saaka aroortii ilaa iyo xilligan aan ku sugnaano marka sida ay dhaqaatiirta idin sheegaanba fiisito ama baaritaan iyo daawooyin ayaa la sameeyay markii hore waxaan ku talagalnay oo aan hore u qaybina kaarar ilaa 50 gaaraya laakiin hadda sida ay noo sheegeen dadkii xoogaa xanuunada ay hayeen oo aad u farabatay ilaa 100 ku dhawaad 40 kala ku raacday marka 100 qof ku dhawaad loo sameeyay baaritaan iyo daawo marka wuxuu iska ahay uu dhiig joojin camal laakiin wax weyn oo zaid ma ahayn marka waxaan rajaynaynaa in uu hay'adaha kale iyo Soomaalida kaleba ay ku baraarugi doonaan oo barnaamijkan oo kale loo sameey doono dadkan barakacayaasha maadaama caafimaadku uu yahay muhiim xilliga hadda lagu jirana sida la sheegaba nafaqa darrada iyo shubanka iyo ay badan yihiin waxaan rajaynaynaa marka in hadda kadib gargaar badan oo caafimaad ay heli doonaan maanta oo idilna gargaarka caafimaad oo sameeynay haddii aan nahay bahda Cabdi Risaale iyo Soomaali Syrian Hospital iyo jaamacadda joogka iyo degmada Kaxda maamulkeeda oo gudoomiyuhu oo aad nooga caawiyay inaan barnaamijkan qabanaba halkaas aan ku soo gabagabeynayna guud ahaan intii nagala qayb qaadatana waa mahadsanyihiin waana u mahad celinaynaa